intaan muuqaalku guda galin in waxaan ka codsan lahayn inaad channelka subscribe saarto waxaan doonaynaa inta aan la gaarin ramadaanta ka hor inaan gaarno 30,000 oo subscribe marka haddii aad subscribe hore u saartay videogan like saar si uu dad kale oo badan u gaaro ay iyaga u saaraan subscribe sheekadani waxay ka dhacday tuulo ay ku dhalan jireen gabdho ka duwan gabdhaha caadiga gabdhahaas oo ku dhalan jiray af aanan ahayn afka bini'aadamka una eg afka xayawaanada dadcunka ah afkaas oo ah mid aad looga cabsado sidoo kale magaalada jooga gabdhahaas ay faquuqi jireen waxayna dadka magaalada degan ay aaminsanayeen in gabdhahaas haddii ay u tagaan naag sixroolad ah oo degan geedo ku yaalo banaanka magaalada inay gabdhahaas noqonayaan free ama ay noqonayaan sida gabdhaha caadiga oo kaleeto balse amarada laga rabay ayaa ahaayeen kuwa aad u adag oo gabadha waxaa laga rabay inay baxdo ayna u tagto naagtaas sixroolada ah marka hore waxay bixaysaa oo waxay qaadanaysaa faynuusteeda weliba xilli habeen ah waxay tegaysaa geeda dhaadheer hoostooda waxayna qaadanaysaa macmacaan afkeeda ayana gelinaysaa waxayna hoos seexanaysaa geed ay degneed naagtaas sixroolada ah kadibna naagta sixroolada ayaa u imaanaysa gabadha afkeeda ayayna kala baxaysaa macmacaanka wayna cunaysaa balse haddii ay gabadha ay dhaqdhaqaaq muujiso ama ay indhaha kala qaado way u dhamaatay oo halkaas ayay ku dilaysaa oo sixrooladu waxa ay moodaysaa gabadha inay dhimatay balse haddii ay dareento inay nooshahay halkaas ayay ku dilaysaa oo bartaas ayay ku dilaysaa waxaa jirtay gabar lagu magacaabay jiya oo degan magaaladaas waxay ahayd gabar ku dhalatay afkaas cajiibka ah sidoo kalena guurka uu aad uga daahay gabdhihii ficid ahaana horumar hore la guursaday waxay ahayd gabar aad uga murugsan arrinkaas maalmaha kamid ah ayay u tagtay ayadii ayaan uga sheekaysay sheekadan waxayna ku tiray arrinkaas waa arrin adag waa in ogaataa mana jirta gabar ka soo laabatay horta mana u malaynaya adigina ka soo laabanaysid jiya waxay ahayd mid aad u rabta arrinkaas inay samayso waxayna go'aansatay in isla habeenkaas ay fuliso arrinka waxay soo qaadatay macmacaankeedii waxa ayna soo aaday iyo geedihii cabsida ahaa ay ku nooleed naagtii sixroolada ahayd aad ay u cabsanaysa dhidid aad u tiro badan ka da'ay iyada waxayna ahayd mid aad uga cabsanayso waxay hoos imaatay geedkii sidii caadada ahaydna waa ay hoos seexatay waxayna afka gashatay macmacaankii waxay ahayd xilligaas mid aad u cabsanaysa balse cabsideeda waxaa uga darneed afkeeda inuu soo laabtay iyada oo ay caadi noqoto wax yar kadib markii ay meeshii jiiftay gabadhii waxa ay maqashay qosol aad u cabsi badan oo ka imaanayo geedka korkiisa waay cabsatay cabsi aad u daran waa ay dareentay balse awalba ay ku xibtamaysa cabsidaan waa kama aysan cabsanin waxaana geedkii kasoo degatay naagtii reer aakhiraadka ahayd ama naagtii sixroolada ahayd waxayna u soo dhawaatay gabadhii wejigeeda si ay uga cabsiiso waa ay ku qaylqaylisay si ay u tijaabisay inay gabadha nooshahay iyo in kaleeto balse gabadha dareemaheeda waa ay ka adkaatay ismana aysan dhaqaajinin wax dhaqdhaqaaqana maysan muujinin iyadoo iska dhigtay wax meyd ah oo rabtay inay khiyaamto naagta reer aakhiraadka ahayd naagtii ayaa soo degatay waxayna bilowday inay afkeeda kala baxday macmacaankii ayna cunto waayna ka cuntay macmacaankii gabadhii markii ay soo kacday dhahna ay soo kala qaaday ayna fadhiisatay waxay aragtay in wejigeeda u soo laabtay balse saas maysan sii ahaanin iyada soo qaybta labaad ee sheekadan sidoo kalena channelka subscribe saaro si aad ula socotid videogana qurxi oo like saar aad ayaad u mahadsantahay